afhayeenka hay'adda Nabad Sugida iyo sirdoonka Jubaland ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday maqaayadda cuntada ee Liido Seafood ee ku taala xeebta Liido halkaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 qof. warbixintani waxaa noo soo diray wariyahayaga Axmed Caydiid Diiriye. afhayeenka hay'adda Nabad Sugida iyo sirdoonka Jubaland Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa cambaareeyay weerarkii ururka Al-Shabaab ka geysteen maqaayad ku taala xeebta Liido ee Magalada Muqdisho. afhayeenka Nabad Sugida Jubaland ayaa amaanay ciidamada Nabad Sugida qaranka ee Niza oo uu sheegay inay si guul ah ku soo afjireen kooxihii weerarka maqaayadaasi geystay. ugu horeyntii waxaa ugu tacsiinayna ummadii shacabka ahayd oo cadowga kooxda ugus ee ku baabi'iyeen hoteeladii ku yaalay magaalada Muqdisho sida Liido Beach View ummadii ku dhamaato shacabka ahaa walaalaheena ahaa Soomaaliyeed waxaan leenahay intii ku dhimatay inay shuhada yihiin aaminsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto jannada firdawsna Allah ugu bishaareeyo kuwii ku dhaawacmana waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu rajaynayaa Ilaahay inuu boogadhayo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay yihiin kooxdaas koox dawlad kali ama ciidamo gaar ah ama madaxweyne ama wasiir iyo awdan lahayn ama xildhibaan awdan lahayn ay u dalleeyeen ummadda Soomaaliyeed inay baabiyaan noloshooda iyo jiritaankooda hooyada Soomaaliyeed oo lagu dilay meeshaas ayadii canugeeda waa u jeedin nimanka ayaga shacab uma turaayaan waxaan war ku hayaa ciidanka Nabad Sugida sirdoonka qaranka in askari kamid ah wiil dhawaaqayo aabihiis meeshaas ku dhintay in uu yiri aabow uu askarigi uu darbiga ka booday uu badbaadiyay askarigana meesha ku dhaawacmay oo u jeedin ciidanka xoogga dalka noocyada kala duwan inay ummadaas shacabka ay badbaadinayaan u diyaarsan yihiin naftooda inay u bixiyaan in qof Soomaaliyeed naftooda u bixiyaan dhimashada u dhiman lahaa inay badbaadiyaan asaga uu naftiisa ku bixiyo ummadda Soomaaliyeed waxa ugu baaqayaa nimanka ayaga ah in aan la dagaalano ciidan kali lama dagaalamayaan waxaan rabnaa inay la dagaalamaan shacabkana laamaha amniga kala duwan inay u soo sheegaan kooxda ugus meel walba ay ku jiraan ehelna ma noqdaan Soomaalinimana koox matalaysa ma aha islaamnimana ma matali karaan maxay galabsadeen ummadda Soomaaliyeed oo shacabka ahaa hoteeladaas magalada jimcada ahayd ku soo dalxiisay maxay galabsadeen maxay dhimeen ma dagaal ay kula jiraan oo maya waxay diiday nimanka ayaga inay ummadda Soomaaliyeed dawladnimo iyo jiritaankeeda iyo nolosheeda ay u diidan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u baaqayaa nimanka ayaga in gacmo wadajir Soomaalida xukuumada gacmo wadajir wax lagu qabtaa in nimanka ayaga isku si alo dirirno meel walba ay ku jiraan aan la dagaalano dadkii meeshaas ku dhintay aad aan ugu xunnahay hadaan nahay hay'adda Nabad Sugida sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland oo ugu tacsiinayna إن شاء الله تعالى هم علينا عيدا كهيئة Nabad Sugida sirdoonka qaranka oo hogaaminayay Janaan Cabdiraxmaan Tuuriye taliyaha Nabad Sugida qaranka suuqaysanimada aheed u soo afjaray nimanka ayaga kooxda ugus wuxuu u taagnaa waqtigii xabadda bilaawatay taliyaha ilaa uu soo afjaro oo shantii habeenimo aheed ama aan dhigi karno 12 saac waqtiga dambe inuu u taagnaa inuu nimanka soo afjaro oo tuutaha u xirtay oo heeganku yahay ciidankiisa waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka amniga oo waqtigaas soo jeeda asagana oo ka qayb qaadanayay nimanka ayaga sida ummadda Soomaaliyeed shacabka meeshaas ku dhameeyeen si uu badbaadinayay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa uga baaqayaa nimanka ayaga inaan la dagaalano waa cadow shakhsi gaar ah ay taagsanayaan ma jirto dhammaanteen ataag u ah nimankaas ayaga inaan la dagaalano fikirka qaldan oo dalkeena loo soo hooyay meel daran loo keenay inaan kula dagaalano nimanka ayaga weerar habeenkii jimcaha koox ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen maqaayad ku taala xeebta Liido ayaa waxa ku dhintay in ka badan 25 qof oo ay ku jiraan 4 kamid ah kooxihii weerarka soo qaaday waxayna dadka halka ku geeriyooday ay banaayeen dad rayida hay'adda Nabad Sugida iyo sirdoonka qaranka ay shaacisay inay gacanta ku hayaan inay sheegeen inuu ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday maqaayadaasi. Axmed Caydiid Diiriye Somali Channel Magalada Kismaayo.